السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي هابون meel kasto aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena wargeysadii waxyaabaha quraan iyadoo saxaafadda ay leedahay qaacidooyin badan oo lagu sharaxo marka la qeexayo ayaa waxa lagu soo ururiyaa ururinta iyo tabinta warar xaqiiqa saxaafadu waa mid dadka wargelisa waxbarta madadaalisa saxafiga wanaagsan waa qoraaga wanaagsan dal waliba oo kamid ah wadamada adduunka laga qadariyo waxa soo saaray soona bandhigay dadkana baray waa saxaafada haddaba sanadihii ugu dambeeyay waxa magaalada Hargeysa caasimada dalka Soomaaliland ku soo badanaya meelaha amaba se goobaha kala duwan ee lagu barto mihnada saxaafada telefishinka Star waxa uu booqday qaar kamid ah goobahani lagu barto mihnada saxaafada ardaydan kala duwan ee aan booqanay waxaanu kula kulanay iyaga oo sameynaya practicada TV-ga amaba se newscasterka waxa loo yaqaano waana kuwan iyaga oo sameynaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن قيارتا ودنا قال حريداي كسو دواده وروحاydin ka hayna dalka iyo daafaha caalamka intiisa kale السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي هابون meel kasto aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena wargeysadii waxyaabaha quraan بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kasto joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni xiisaha badnaa ee muusiga iyo salaamaha oo habeen walba oo khamiis soo galaysa si toos ah uga daawataan telefishinka caalamiga ee Xurriyad 24 TV studio-hiisa magaalada Hargeysa sidoo kale iyaguna waxa xirfadooda barnaamij aqrineed isla goobtani ku soo bandhigaya qaar kale oo kamid ah iyaguna ardaydani wiilkan iyo gabadhani iyo waxay soo bandhigayaan tabinta idaacad tababarnimo si ay ugu sahasho inay ku shaqeyn karaan warbaahin idaacadeed kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel kasta iyo goob kasta oo ku sugantiinba halkani waa laanta afka Soomaaliga RCC ee mowjadaha dhererkoodu yahay 7.77 iyo shabakada internetka aan ku leenahay rcc@gmail.com iyo waliba Facebook toosa sanad riyaaq abdi jaamac bismillaahir rahmaanir rahiim warka madaxdiisii madax dhaqameedkii dhexdhexaadinayay xukuumad iyo korneyl caare oo ku soo laabtay magaalada Hargeysa Umar Usman Faruq waa maamulaha kulliyadda Cigaal College oo ah mid ay ka aflixeen wariyaal badan oo Soomaalida magac weyn ku dhaxlay waxa uu noo sharaxay qaybaha kala duwan ee warbaahineed ee ardaydani ay baraan halkani waa kulliyadda tababarka saxaafadda ee Cigaal College oo runtii kamid ah kulliyadaha ku yaala geeyga Somaliland Cigaal College waxa uu kamid tahay kulliyadaha ugu facaweyn ee iyagu markaasi soo saara saxafiyiinta kala duwan waxa ka qalin jabisay ugu yaraan ilaa iyo 15 dufcadood oo iyagu kamid aha qolooyinka saxaafadda inta badan anagu markaynu nahay Cigaal College wayna ka duwanahay college-yada kale ee systemka iyo nidaamka aynu saxaafadda u bixino anagu waxaan barnaa ardayda labada qaybood production staffka iyo editorial staffka sidoo kale to waxaanu aad u ilaalinaa shuruuciyada iyo xeerarka saxaafadda oo runtii dad badan ay fikir qaldan ka aaminsan yihiin saxaafadda oo inay tahay saxaafaddu mid dadka wax barta sidoo kale to inagu waxaanu ardayda naga baxda waxaanu runtii siinaa fursado kala duwan oo ma aragtay xagga ma shaqo raadinta kale to inta badan ardayga ka baxa kulliyadda Cigaal College waa arday lagu kalsoon yahay dhisan dhinaca aqoonta dhinaca anshaxa saxaafadda oo fikradda ah in dadka qaar ay saxaafaddu hadal kaliya ay tahay laakiin saxaafaddu hadal maahan waxay u baahan tahay in la barto annaga inta badan waxaanu aad u jecelnahay ardayga naga baxaya inuu noqdo arday tayo leh tababar fiican leh Cabdirashiid Maxamed Cabdirashiid Hudhud telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa